middagen? Gratulera Somalia. Somalia wanjalahay. اللهم استر صوماليا يا رب. آمين يا رب العالمين. وأمة سيدنا محمد. السلام عليكم. أقل لي وحده قابو وياي دحل وحاب لي لهي كاغا هويو دحل وحاب لي لهي كاغا هويو وانا لا محوراني أقل لي وحده قابو وانا لا محوراني أقل لي وحده قابو وابدا فايلغا أوراني هليو أبيي معا وابدا فايلغا أوراني هليو أبيي معا وابدا فايلغا أوراني هليو أبيي معا وابدا فايلغا أوراني هليو وياي عملية هذا وكا كلايديو عرفنا ليلو كدوية إنك خلايمي ومالي يقول أوه قالوا يا في سهرك والله موجي في إيام كلايديو عرفنا ليلو كدوية إنك خلايمي ومالي يقول أوه قالوا يا في سهرك والله موجي دحل وحاب لي لهي كاغا هويو دحل وحاب لي لهي كاغا هويو وانا لما قراني أقل لي وحده وانا لما قراني أقل لي وحده قابو قل لي لهي كاغا هويو دحل وحاب لي لهي كاغا هويو وانا لما قراني أقل لي وحده وانا لما قراني أقل لي وحده قابو أنتي معا وابدا فايلغا أوراني هليو 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 جبريل قروح بدن بعد ما سكين وقفكي بقول أكشن مايكا waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka
waxay ka koobneed 5 dal oo kala ah Soomaalida weyn, Soomaalida waqooyi, Soomaali galbeed, Djibouti iyo NFD oo North Eastern lagu dhaho. intaba waxaa kala gumaysanayay gumaystihii Ingiriiska, gumaystihii Talyaaniga ayaa kala haystay. shirkii Berlin ee 1884 lagu qabtay Berlin ayaa Soomaaliya lagu kala qaybsaday oo ay gumaystii ku kala qaybsadeen. Talyaanigii barbow qaatay, Ingiriiskina barbow qaatay. Soomaaliya 1960kii ayay xornimadeedii dib u soo ceshatay 2 gobol oo kamida oo waqooyi iyo koonfur la kala oran jiray. isla markaasna ay kala haysteen wadamada Talyaaniga iyo Ingiriiska. xornimada Soomaaliyeed waxay ahayd mid naaqus ah oo bar ah maadaama 3 kamida Soomaalidii ay kala maqan yihiin. waxaa weli gacanta gumaysiga ku jira xilligaas Djibouti oo iyadu goor dambe Faransiiska ka qaadatay 27 Juun 1975. waxaa sidoo kale Ingiriisku oo haystay oo isla markaasna Itoobiya ku wareejiyay Soomaalida koonfur galbeed ama Soomaali galbeed. dhulka hadda ogaadeen iyo la isku yiraahdo ee dawladda federaalka Itoobiya hoostaga ayuu Ingiriisku ku wareejiyay gumaystihii Itoobiya. dawladdii Soomaaliyeed ee 1960kii xana qaaday waxay isku dayday in gobolada NFD la isku yiraahdo ee waqooyiga bari ee Kenya ku yaala ee Soomaaliyeed in ay dib u soo ceshadaan. wada hadallo iyo xagal daacayn ka bacdi wuxuu Ingiriisku 1963 oo ku wareejiyay Kenya. Soomaaliya xornimadeedii wali naaqus iyadoo sidaas ay tahay ayaa dawladnimadii Soomaaliyeed iyo hay'adihii dawladda ay naga burbureen 30 sano ka hor 1990kii. sidaas oo tahay dadka Soomaaliyeed qulubtooda waa ay ku dhex nooshahay maalmihii qiimaha badnaay ee 1960kii ama 1 Juulaay oo ah maalin noo astaysan haddaan nahay dadka Soomaaliyeed. gobolada waqooyi oo calanka qaatay 1960kii Juun oo ahayd meeshii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed laga taago, iyo koonfurta oo ayadana 1960kii la soo laabatay xornimadeedii. maanta oo kale ayay midoobeen isla markaasna dawlad Soomaaliyeed oo caalamka ka shaqeysa la dhisay. dawladnimadii Soomaaliyeed weli waa haysanaa laakiin male awood badan oo ay dadka Soomaaliya ku xisaabtamaan. marka loo eego qaanuunka caalamiga ah dadka Soomaaliyeed waxay ku jiraan gumaysi madahan oo aan caarif ahayn. marka lagu yiraahdo Soomaaliya waxay leedahay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay, taas micnaheedu waxa weeye Soomaaliya weli waxay ku jirtaa kontaroolka gacmo shisheeye oo qaramada midoobay ayaa si madahan loo maamusho. dawlad waan leenahay, maamul goboleedyaa jira, dawlad system federaal jira. sidaas taayna jamhuuriyaddii Soomaaliya isma midaysna. systemkii dalka ka soo jiray dhibaato ka soo gaartay gobolada qaar waxay ku dhawaaqay gooni goosad. inkastoo ay beesha caalamka aysan ka helin aqoonsi guud, haddana dadka Soomaaliyeed qulub ahaan waa dad midaysan, laakiin siyaasad ahaan waa dad kala firaarsan ay u baahan tahay inay mar labaad dadka Soomaaliyeed ay xornimadooda dib u soo ceshadaan. Soomaaliya dawladda federaalka ah waa dawlad jilacsan oo ay gacanta ku hayso qaramada midoobay. inta Soomaaliya ay leedahay ama uu jiro wakiil qaramo midoobay ay dadka siyaasadda ay noo meerinayaan, Soomaaliya wali xornimo lagu faani kara ma haysato. waxaan u baahanahay inaan dib u midoowno, dib gacmaha isku qabsanno, dib aan maaragtay xornimadeennadii 1960kii ilaa 90kii aan haysanay ee uu shaqaynayay rabitaankanagu inaan dib u soo ceshano.
taasna waxaa looga bixi karaa in dadka Soomaaliyeed ay ka heshiiyaan siyaasadda. Soomaaliyeed marka fadlan aan isdhegaysano aan wada dabaaldegno calankeena waa aragtaan quruxda oo leeyahay marka aan midnahay oo aan wadano oo aan isla joogno oo aan hal meel ku midaysanna laakiin hal qof hadoo wato ee oo magaalada la maraayo wuxuu ka qurxoon yahay marka anagoo badan wadano oo hal meel aan isla joogno wax badan ma raba inaan dhaho dadkii ugu horeeyay ee taariikhda ka sheekeeyay wixii la isdhiilaayo dhan ayaga dhahay waxaan rabaa inaan si gaar ula hadlo dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Norway ku nool waxaan rabaa inaan idin sheego generation-ka naga horeeyay waxbay dumiyeen ayaga dalkii iyo qaxootiga nabaday annaga nagala rabaa inaan dhisano annaga nagala rabaa inaan soo celino sharafkii ciisihii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd maxaa yeelay markii horeba annagoo dhalinyaro ah oo weliba tiro yar oo ka aqoon yar maanta oo ilbaxnimada heerka ay gaarsiisan tahay ayna gaarsiisnayn oo tiknoolajiyada caalamku ka hormaray aysan sida maanta ay tahay ahayn ayay 13 dhalinyaro ah oo gumaysi ku jira oo aan hub haysan aqoon badan haysan soo saareen calanka aad aragtaan ee quruxda badan ee aan maanta u taaganahay halkan oo aan xusayno oo aan u dabaaldegayno macquul ma aha waqtiga lagu jiro inaan odayaal dhageysano dalka ayaga dumiyay oo burburiyay ilaa welina raba inay Soomaali dhexdeeda xuduudo ka sameeyaan oo qabiilkii iyo qabyaaladii koriyaan oo ayagu weli dadka u horseedaan dulinimo iyo gumaysi iyo inaan dad kale hoos joogno waxaan rabaa inaan gacmaheena iyo caqligeena iyo aqoonteena isticmaalno waxaan rabaa inaan ka baxno waxa aan ku jirno macquul ma aha dhalinyarada Soomaaliyeed looma baahna inay noqdaan sida dhalinyaro dalkooda dhisan yahay Norway waa joognaa waa ku noolnahay waa inaan ku darno xisaabta inuu naga dambeeyo dal burburay dad baahan oo masaakiin ah marna daada qaada marna biyo la'aan ay u dhintaan aqli shaqeeya malaha waa fararaa aqliga Soomaaliyeed waxa laga sugaayo waa dhalinyarada haddaan naga noqono marka sida kuwa u nimid oo raacno oo aan la baashaano la cawayno qaarkeen u dhaqmaan sida inay halkan weligood ka laabanaynin waxaan rabaa inaan codsi u jeediyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan reer Norway walaalayaal waxaan naga dambeeyo dal iyo dad annagana sugaya Soomaaliya isku tashata hadaa maqasheen waa Soomaaliya ku tashato dhalinyarada maanta ku tashato waa annaga inaan wax dhisnaa naga raba waa maasantiin waa ku dheeraaday xaflad wanaagsan maanta hambalyo 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 waa maasantiin كلي dhalinyarada iyo dalkii ugu horeeyay ka hadlay taariikhdii iyo wixii Soomaaliya soo martay balse anigu waxaan ii sheegayaa dareenkayga meeshaan maanta waana faraxsanahay waana naxsanahay waxaan ku faraxsanahay yani maanta quruxda aad u soo bandhigtay sida aad maalinkii u xusteen sida taariikhdii iyo sharaftii Soomaaliyeed ugu dhagan tihiin waa ku farxay marna waa naxayo mar waxaa jirtay kaliyaanimada ka joogtay waddanka meelo ka mid ah kaliyaanimada ka joogtay aniga iyo Filibiina bahalkii ahay Vietnam ayaa kaliya waxa isku qabin ninka Vietnamka iyo aniga kaliya yaa isku qabin siyaasad jirna meel magaalada ka waddanka mid ah marka waxaan u hambalyeeyaa oo si gaar ah u taqaanaa u karaameeyaa dhalinyarada soo aabushay iyo intii ka soo qayb gashay iyo gabadhii juhud gabadha ku bixisay inay mataqaan dadka isu keento iyo intii ka soo qayb gashay horta waxaan leeyahay Allah barakeeyo oo gumaasadii tan kale waxaan ku dardaarmayaa ha kala teginina mid ahaba shanta faroosay oo sugnada suuligaada
intiinana la isku dayaa in la kala jabiyo intiinana la isku dayaa in la kala qaybiyo gumaysigu siyaalo badan buu u shaqeeyaa xagga maskaxda xagga dhaqaalaha xagga cilmiga si kastaba dalka waa kala dagaalamaa gumaysigu ma garateen haddaan intiinaan isku duubantiyo dhabadi ka tahay ilmana leeda kama qaadan karo waxna leeda meeli karo waxaan idinkuu dardaarmayaa isku duubni soomaaliya ha noolaato adinkuna noolaada asalaamu calaykum waraxmatullahi gadiga geeridu ka dardarmay galabtaan arkaya ee gadii u ganay sheegay miyaanay goobtan ka muuqan gayigeena baleega waxa good isku gooyay waxa good dul rooray cumaale shabeel iyo garmaameeye durwaa gafuur weyn afrikaan iyo gaardiya ayaa maxar gobol waay gobka dayrta mireeyay gomashaa dhulku daatay aboorka guranaya gunasi dhiganaya gasiinkiisa xiriistay godka cawska la aaday garangoorida yaacday gafanood ku baxaya gafka reerka dul yaaliyo gunimaan arkaya ee dadku gul nacibayo gasariir jecelayo garaadkoodu yara maandeeqoo godlanayso cado goonyaha haysto ninka guunyo ku doona ganisi islaha iyo gowska kii ka jeclaaday badda gowda ku haysa gafuurweyn afrikaan inuu goosto la goobay ee ku gargaaray xumaato sirteennii gudbinaya u guraya wanaagga inta uu gobolkeenna iyo geyigeenna dhex joogo gobaad soo dhicin mayno gusha soo heli mayno guntan mayno donteenno gaari mayno wanaag waatanoo gudbi weyday oo garna diidday hasheennu inay geesu dhaqaaqdeen ma god baa ka horreeya gumar gaalku kuwooda iyo gebiyey aragtaa waatanoo godlan mayso gaxan weyday hasheennu gabaluu cirku turiyo gurihiisa habeenkiiyo gudcurkaa u galmooday iyo galinkaa kala guray giganay aragtaayo galbeeday ka didda watanoo gudbi weyday garna diidday hasheennu waa inay geesu dhaqaaqdo ma god baa ka horreeya soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أباك صعب كسيه صعب كلا كسيه أباك
magacaygu waa Muna Cabdi waxaan ku noolahay wadanka Norway maanta waxaan ka soo qayb galay maalinta xornimada Soomaaliya 60 guuridii ka soo wareegtay aad aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maanta oo kaleeto waana hadda ka hore ma qayb galin laakiin aad maanta aad ugu faraxsanahay yani inaan wadankeyga shucuurtiisa aan halkan ku muujiyo iyo calankeyga quruxdiisa marka aad aan ugu faraxsanahay hambalyo dhammaan Soomaali weyn meel walba oo joogan waxa ugu hambalyeynaya farxadan iyo dabaaldegankooda luuliyo oo ka soo wareegtay 60 sano hambalyo mar labaad iyo mar saddexaadba ما شاء الله أنا أقول فرح سنة إن سنة دولة بس إذا أنت أقول قاعدة ذلك النرويج أنا ياسمين أهان أقول حساب طبعا حتى فسحي وحن كذي مركي هل كان فوق عاد كذب فرح سنة صلاة حسين محمود داعد أوسلو نرويج